سبحانك يا عظيمة نينكا ننقص لماها قبل وحور ربي إنه معسيو ربي أيساو جنبتي ninka nin mataqaanaa naxal maaha waa nin markastaba gabdhaha fadeexeeya ama meelaha publiga ku dhuuqa muuqaalan iskaga duuba waliba sidoo kale muuqaalka kan waxaad ka arki kartaan in fiidiyoga oo ishaag maxaa lahaa oo og yahay oo ugu talagalay laakiin gabadhu wax ay dhii ah kama haysato muuqaalkan hadday aragtay kadibna way isboojeysay asagu laakiin already muuqaalku wala socday gabadhan waxaa waaye muuqaalka way la fajacsan tahay I don't know ما كان صوتي وهذا ويس لكن وحندري ما يا مقال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتك وحنا جنال كي عين قلبي وفشير كسر هذا ما أنت مقال عصب حدا جنك عصب تهاي سبسكرايب صار فيديو كان لايك جري شير جري أو كومنت جري دوران وجوتنا وكم عصن تهاي دمان waxaan leeyahay jumca mubaarak ama jumca jamiila meel kasta aad naga daawaneysaan ama aad joogtaan waxaan leeyahay jumca iyo maalin qurux badan baan jeedinaa happy weekendgiina ugu soo leeyahay isku soo noqosho wanaagsan waxaan rabaa inaan maanta ka hadlo waxa aad iyo aad TikTok iyo baraha bulshada aad u dhex wareegaya xafsa kuweyn iyo oo ma taqaanaa ninkeedu gaashaanka u dururay naag kalena gacmaha ay isqabsadeen حبس كوين أيا سؤال حلاي طول إلا مانتي قال له ذو المقالة إذا برح بالشدة ما دام ساحب كده هو الصدر الدين وجبر كله جمعها إسخبصين مقايد دي حبس كوين رجس صوتنا متكلا لقي كبعدنا وح يسمى سي حبس كوين وحي مقال وكجري تيك توك وعي كسرتي وحي مقاله أو أيضا يستدروا الدين إجرين حتى على الإنستغرام كأما يوتيوب كنا وحتى أو حي كاركتي طيب هذا كاركتي مركب محاربنا إن متقنا أنت استفاقدنه مقال كستدروا الدين أو سوق اللي برتي سناب جات كأن وظفيرنه السجى يو جبر كله أو جمعها أساسا فرحنا كموقته ومقال كيس حفص كوين كوكلفي إن أي بريه البلشة أو إذل أي بريه فتكرجته محلنا مركا إنا إسلا داوانو صدر الدين يأتريشة عصب أو إجعمها إسخاصدين أرنا إسلا داوانو صدر الدين وهيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو الجن أبو صالح هاي سبحانك يا عظيمة نينكا ننقص لماها قبل وحور ربي إنه معسيو ربي أيساو جنبتي ninka nin mataqaanaa naxal maaha waa nin markastaba gabdhaha fadeexeeya ama meelaha publiga ku dhuuqa muuqaalan iskaga duuba waliba sidoo kale muuqaalka kan waxaad ka arki kartaan in fiidiyoga oo ishaag maxaa lahaa oo og yahay oo ugu talagalay laakiin gabadhu wax ay dhii ah kama haysato muuqaalkan hadday aragtay kadibna way isboojeysay asagu laakiin already muuqaalku wala socday gabadhan waxaa waaye muuqaalka way la fajacsan tahay I don't know ما كان صوتي وهذا ويس لكن وحندري ما يا مقال كان إني يشجع على يكون أحد مركز الجدوى أصلا لكن كنت لقل أيو اسمينه يا مقال شيء مقط وحكنا والله ياب كلا وحيتاي يا وحكنا والله ياب كلا وحيتاي سجاشين كن كانوا واساس تركيش على ما أنا لا يابتها نكان مقال وسوقليو عندي سبناك أوتال نكان مواصل نحشود هيد ونكان مواصل إيشك محلا نوين مواصلين عوردي سمحا بناك كان أفلا تكسر محا مرك قبل ما كو أركب نكانوا وحاوي وحنقونا ألو سهل نكانوا ما حبسي مو كحر ناجري مال أنا تشوق جري وفهم واي مركا muuqaal kan ayaa wuxuu yahay muuqaalkii xafsa kuweyn ku kalifay inay dhamaan baraheeda bulshada ay ka bixiso wixii sawir iyo muuqaal ah ay wada galeen ayada iyo sadrudiin si kastay ahaataba xafsa kuweyn ayaa xalayna ayadana barta TikTok si live loogu weydiiyay su'aasha tan nasrudiin iyo ayada iyo ishaq maxaa lahaa waxa ay ku kala dambeeyeen iyo kiiskoodu meesha u maray maadaama dadku ay aad ula socdeen waxaan rabnaa in isla daawano xafsa kuweyn wixii ay ka tiri
muuqaalkii xalay laga weydiiyey Sadruddin oo soo dhigay bartiisa Snapchat haye horta aan hal waxa la yaabay aronkii qofku wuxuu yahay laakiin qofka aan ka tago qof aan iga foolxun oo keensada qofna qof ka foolxun ma ka maseero waxay dhahday aniga waxba igama gelin laakiin waxaan idin hubaa ay leedahay qof kasta aniga aan ka tago qof aniga iga foolxun ayuu keenaa ay leedahay already way cadaysay in ay sheeg maxaa la kala haajireen sidoo kale wararka aan helayno ayaa waxay noo sheegayaan in markooda horeba aysan wax qabitaan aysan ka dhaxayn laakiin dad asxaab ama saaxiibo ah oo wada noolaasho ay ka dhaxayso ay ahayd bal waxaan rabaa asasi daawano xabsakuweyn qof ka foolxun ma ka maseero at least infect ku farxaaba waxay leedahay qof foolxun aniga kama maseero at least waa ku farxaa ay leedahay oo macnaha way sii dhiirigelinaysaa ayay ka wadaa sida aad wada ogtahay xabsakuweyn ayaa muuqaalkeeda ayada iyo Sadruddin hore waxay baraha bulshada usoo dhigeen maalmooyin ama bilo ka hor ayaga oo sheegay inay iscalmadeen ama isguursanayaan aroos weyn ay dhigi doonaan laakiin kiiskaas ayaa beenoobay ila ku dhow labadooda markaan xiriir la sameynana waxay noo xaqiijiyeen wax aroos leedahay inaysan xataa ka wada hadlin iska badaaw in aroos ay dhigtaan laakiin dad asxaab oo ah xabsakuweyn oo aan xiriir kala duwan la sameeyay ayaa waxay ii xaqiijiyeen in Sadruddin sababta ay u keensatay eeba ahaydba in ay ku jabiso Adnaan Moodal oo ay wax kale u keenay waxaa kaloo la leeyahay Adnaan Moodal laftigiisa ayadana waxay u keentay inay ku jabiso Rashka Boy marka dadka ku dhadhow xabsakuweyn ama sida aadka u yaqaano saaxiibadeeda dhow waxay noo sheegayaan ama noo xaqiijiyeen in jacaylka saxda ah ee ninka saxda ay jeceshahay ee wax walbaba dartiisa usii sameynaysa inuu ahaa Rashka Boy Sadruddin ayaa gaashaanka u duruuray xabsakuweyn kana tegay banaan ilaa uga tegay laakiin arrinta la yaab kale oo dadku aadka uga hadlayaan waxay tahay maqaayadii laga soo waday isheeg maxaa la yidhaha xabsakuweyn maqaayadii la geey jiray isla maqaayadii yaa la geeyey xabadan kale waxaa la yidhaha maqaayadan waxaa la yidhaha waa oil Libya waaye waxay ku taallaa Nairobi ku taallaa waxaa la yidhaha oil Libya waa meelaha shidaalaha iyo waxaa lagu gado waa maqaayadii maalintii hore ayada la geeyey ayaa dibna xabadan kale loo geeyey asriishadan cusub ee Sadruddin ay gacmaha isqabsadeen lama yaqaano ilaa hadda kama uusan hadlin asagu laakiin waanu arki doonaa oo waxaan raadi doonaa akhbaaro ku saabsan asriishadan iyo meesha iska barteen iyo asriishadan meesha ay ka timid walow dadka qaar ay noo xaqiijinayaan in asriishadan ay ii sheeg maxaa lahaa Sadruddin ay ii sheeg maxaa lahaa hadda dad gacmaha isqabsaday inay yihiin oo dad aysan ahayn hore cilaaqaad iyo wax uga dhaxeeyay sidana loo sheegayo oo ila ku dhow ay noo xaqiijiyeen oo waxa la leeyahay Sadruddin iyo asriishadan hadda isla socdo waxay isku qabteen si kama ah oo dad hore connection ama xiriir uga dhaxeeya maahana la leeyahay oo ii sheeg maxaa lahaa xiriirkooda hore u socday ama hore isku yaqaana maahan laakiin waa dad si accidenti ah ku kulmay magaalada Nairobi marka hadalkaas markiina loo sheegay baaritaano aan aad u badnayn ayaan sameynay waxaana baaritaanadaas nala kugu xaqiijiyey in gabadhaanu ay tahay qurba joog oo aysan ahayn gabar Nairobi degan oo ay ka timid qurbaha sida naloo xaqiijiyey baaritaano badan ayaan sii wadnaa oo waa sii sameyn doonaa Sadruddin iyo gabadhan qaabka isku barteen iyo qaabka mataqaana isku soo xirmeen baaritaanaan ku wadnaa aan ku sameyn doonaa waan idin soo gudbi doonaa xabsakuweyn waxaan leenahay marka xabsakuweyn arrinta hadda ninkan sameeyey tusaalaha ku noqoto bini'aadamku qof kasta saaxiib uu leeyahay oo adduunkan joogo nin kasta saaxiib uu leeyahay gabar kastana saaxiib ay leedahay laakiin wuxuuda dhabarka dambe ku wataan marka adiga waxaaga qarso YouTube-kaaga iyo waxaagana business ahaantaada nidaamyadaada u imaaw oo arrintaada noloshaada private ha ahaato sababtoo ah macnaha markii oo public ah wax ka dhigtid iyo marka aad public isku hayn way kala duwan tahay noloshu oo dhaawac ku soo gaaray xataa wuu ka xanuun badan yahay marka aad public soo dhigto oo qofkan dadka kale ay ku yaqaanaan marka waa salaamayaa wixii ku soo kordhay dib baan kala soo socodsiin doonaa baaritaano badan baan wadnaa
ishak maxaa lahaa muuqaaladan muuqaalka ku xiga ayaan nagala socon doontaan aad iyo aad ay u mahadsantihiin warlay family kaga tagay intaan muuqaalkan muuqaalka xig kulmi doono like subscribe share